su'aasha koowaad salaada subax dabadeed ma la seexanayaa waxaan leenahay waa la seexanayaa way bannaan tahay laakiin waa waqtiyada la seexda kuwa ugu liita waa waqtiyada ugu liita bacda al-casr iyo bacda subax ila seexda wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam buurika li ummati fi bukuriha ummadayda kallahadeeda waa loo barakeeyay raggii salafka ahaa ee tagay wanaagsanaa markay salaada subax soo tukadaan ay arkaan ubadkoodii ama kuwii ay dhaleen oo seexseexanaya waxay yiraahdaan waa xilligii arsaaqda la qaybinayay bad seexanaysa ka arsaaqda la qaybinaya qaybtaada qaado marka qofka horumarkiisa iyo guushiisa iyo dadaalkiisa waxa kamida inaanu bacda salaada subax aanu seexan hadduu seexanayo xilliga barqado kale intaan duhurka la gaadhin waana xilligii ay qayluulaysan jireen dadkii shaqadooda ku noqon jireen koob iyo tobanada marka la gaadhay xoogaa seexan jireen qabla dhuhr hadduu bacda dhuhr seexdana waa meesheeda laakiin xilliga bacda salaada subax hurdadeeda waa laga fiican yahay laakiin qofkii habeenkii culays dareemay ama xanuunsanayay ama habeenkii saamaleylay waxaan de macsiyo lahayn hurdo u baahan isla waxa weeye culays shaqadu ay ku noqonayso qofkaas oo kale si uu maalinka inteeda kale uga faa'iideysto waxa weeye waa ku kabi karaa insha Allah ta'ala inuu seexdo laakiin ma fiicna illa caadeysto ma haboona waana mushkilad waxa weeye dad badan ka cawdeen Malaysia hadda waa dawladaha islaamka kuwa ugu horumarsan weey markay doonayeen horumar inay sameeyaan waxa mushkilad ku noqotay dadku salaada subax markay tukadaan bay seexdaan waxay soo kacaan 10ka subaxnimo ayay soo kacaan mushkilad weyn bay ku noqotay shucuubtii bay baadheenoo Jabaanka aad u horumarsan bay arkeen inay salaada subax ka lahaan team dan ama wafdi dan oo Jabaani sabab la keenay dawladdu baa u yeerisay waxa la doonayaa Malaysiyaanku inay subaxii ka lahaan baa la doonay si wadanku horumar u yeesho dabeedna waxay yiraahdeen waxa la doonayaa dadkan in lagu borogarameeyo ka lahaada dhowr sanaan ay u baahan tahay muddo laga shaqeynay hadda salaada subax inta la gaarin baad arkaysaa iyagoo yaacaya waa loo tababaray marka heer bulsho iyo mid qofba takhalluf badan buu keenaa hurdada la seexanayo bacda salaada subax waa xilli haday xagga arsaaqda tahayna baraka badan sida nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam haday tahay xagga cilmiga iyo waxbarashadana waa xilliga ugu fiican ee wax la qaybo marka waa in waxa weeye laga fogaado